bointiga marka security-ga iyo amniga labaha amniga iyo siyaasadda labaha laga kala dhigo marka aan siyaasadda abbaarayno oo aan rabno inaan abbaarno nimanka odayaasha sideeda aan u doonano ayadoo geed ugu soo gaban laakiin amniga iyo shacabka iyo dadka in la khalkhalgeliyo la yidhaahdo shabaab baana xukumiya shabaab baa xagga noo kaxeeya shabaab baa wadada baarlamaankan markuu yimid waxaa lagu bilaabay gaadiidka lagu bilaabay xerada gaadiidka stadio colis u dhow baa lagu bilaabay waa lagu shiri kari waayo amni daraadi waxaan tagnay tali bahalkii maxaan ku idhaahdaa meeshii ahayd meeshan wasaaradda cadaaladda iyo gobolka waa lagu shiri kari waayo waa la tegi kari waayo waa ka soo tagay halkaanaan soo galay baakinkaanaan soo galnay because of shubkaan inuu naga celiyo hoobiyaha dushana qoryaan noo saarnaan jirna markaan hadlayna xabaduhu waa dhici jireen hadday istaagaanna waxaan u malayn jirnay maxaan dhihi jirnay muxuu istaag maantana barxadda isbahaysiga banaankiisaan ku shiri karnaa shirka ku xiga dayniilaan ku qaban karnaa ka kalena waxaan ku qaban karnaa maxaan ku idhaahdaa kaxda iyo dhinaca kale dubadley aan ku qaban karnaa yaa dhihi kara laguma qaban karo waa lagu qaban karaa marka saaxiibyaal aniga waxaan rabaa inaan valuega amniga aan siday tahay u siino marka aan rabno inaan shaqo qabanana shaqadii kale iyo ciddii kale lala xisaabtamay sida lagula xisaabtamo waa run weli dabac baa jira dabacuna ma dhammaan doona muddo dheer u baahanya dalkeena sababtoo ah meesha laga keenayaa fog yaan lagu celini waxyaabaha qaarkood oo saaxiibada ay ka hadlaayeenna waxaan soo jeedin lahaa waxaa ku habboon meelo kale lagaga hadlo oo waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin in maaragtay aan halka la keenin taas waxaan uga jeedaa waxaa niyad jabka keenaya macno badanna aan samayneyn inaan ka dayno halkaan aan ka dayno